war degdeg ah oo goorna soo gaaray waxa uu ku soo waramayaa in magaalada Muqdisho qarax xoogan uu ka dhacay. wararka inaga soo gaaraya wadada Makal Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in iskooska shaqaalaha magaalada Muqdisho qarax gaari oo aad u xoogan halkaas uu ka dhacay. waxaana ilaa ayadan cadeyn qaraxa gaariga lagu xiray in uu iska lahaa mas'uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya in uu qof shacab watay. nawaaxi qarax uu ka dhacaya waxaa soo gadaamay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya qaraxyada gawaarida lagu xiro iyo miinooyinka nooca lagu aaso waxaana arrintan imaanaysa xilli wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa xiran ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay howlgallo ka wadaan gudaha magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda sida ay sheegeen saraakiisha kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. dhawaanahan amniga magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid faraha ka sii baxaya oo shacabku dhibaatooyin kala duwan ay ka qabaan qaraxadan ka dhacaya magaalada maadaama dhibaatooyinka ugu badan qaraxada ka dhaca Muqdisho ay soo gaaraan shacabka ku nool magaalada.